qaybtii 16aad ee silsiladii taariikhda gashay ayaa soo dhacday milgi iyo ismaan dhaafin badan baa la isu soo miisay murtida noocyadeeda kala duwan talow qaybtan yaa inoo wada waxaa codkeedii macaana inoogu qaadaysa qaybtii 16aad fanaanada luuqda tulmoon ee hodan indho oo xaada dadweynaha gilgishay difaac adagna u gashay dumarkii ay isku bahada ahaayeen hodan oo rabaani cabdi xabsi u taxaabtay ayaa tidhi wax kastoo margada rag baa maamulee waxaan maanka gelin mar haddaad la timid mawjad baan kaa xidhaya maxbuusii ahow erayada miisaan kale dhigihiinna soo gaadhayana waxaa hal abuuristooda inoo soo laqimay abwaanka abwaanada geyiga cabdulaahi xayawaan oo hal abuur sidiiq midhihiisii cidhibta mariyey xayawaan oo ka xajiimooday suugaanta deelqaaf kale ee hablaha soomaaliyeed lagula kacay ayaa heelladiisa inagu maqashiiyey masdil iyo ardaal ceebta ay miisayaan looma meeldiine hablaha ay marmarin maba qaban kartee rag ismoodsiis xumaa laxanku waa anwartoote muusigu waa maxamed yare soo saaristii midnimo qaran filimis waana sakiilka casoo idin leh gebagabadii silsiladaynu ku dhownahay talow iyo guushu raaci doontaa Kuma hagay buu magacoodi ba'ay
حراية وار محبوسي يا هو Is